haddaan nahay dhalinyartii gobolka afdheer waxaan totally-ba aan qaadacnay xisbigii EPRDF ee haddana u diga rogtay ama u shaati bedeshay BB kaasoo raba inuu 5 sano soo socotay iyo wixii la midaba uu nasii hogaamiyo sababtoo ah xisbigii waa kii oo magacii bedeshay horeyna u soo tirin jiray haddana waxa weeyaan talada haya hadda magacii uu bedeshay iyo waqtigii hore uu sii joogay ba magac kale u watayba wax isbedela ama wax isdhaamida oo gobolkaas bulshada ku nool afdheer yani uu u sameeyay inaba ha yaraatee ma jirno marka xitaa asagaba magaca bedeshay oo magacii hore iskaga diga rogtay annagii markii gobolkayd halka ku noolay shacabka halka ku noolaaba meel uu asagii ka diga rogtay magaciisa ka bedeshay in yani wax isbedela annagii aan weyno oo sidii una sii ahano arrinna qabata ma aha sida ay daraadda dhalinyarta gobolka afdheer waxay isku wada raaceen inay qaadacaan xisbigan talada haya BB بسم الله الرحمن الرحيم وحان مركا كوباد ومهد علينا الله سبحانه وتعالى كلنا كان اسكو كيني نسو غارسيي بشان بركيسان رمضان إن عافيماد iyo nabad qab aan ku soo gaadhno halkan waxaan isku nimid anagii dhalinyartii gobolka xaalada jira awood inaan insha Allah aan ka xaajoono waxaan marka koobaad waxa weeyaan subhanallahi wa ta'ala noogu mahad celiina bisha barakeysan Ramadan inuu caafimaad nagu soo gaarsiiyay abaarihii iyo oonkiina uu naga saaray oo raxmadiisii uu na soo gaarsiiyay waxaan isku imaanay kulankan inaan ka wada hadalno guud ahaan gobolka afdheer iyo xaaladaha ka taagan sidaan ognahay gobolkaas muddo 30 sano ah ayay jirtaa dawladda deegaanka inaba ha yaraatee gobolkaas waqtiga ayada ee dawlad laga aasaasay iyo waqtigan xaadirka aan joogno wax isbedela oo meesha ka jira ma jirto haday caafimaad ahaato haday biyo ahaato haday leyd ahaato haday wadooyinka ahaato haday waxbarasho ay ahaato dhan walba nolosha asaasiga ee dadka bini aadamka ay ku noolaadaan kama jirto gobolkaas iyo dhammaan dadka ku noolba waxaa nasiib darro ah xisbigii intaasoo 30 sano ka soo talinayay inuu yahay xisbi aan marnaba gobolkaas aan u diiwaan gashanayn ama inuu wax ka qabto wiligiis aan ku fikirin waxaad moodaa hadba xukuumadda bedelayso inay jigjiga ay ka bilaabato godayna ay ku egtahay baad moodaa gobolkaas hadda abaara ayaa ka dhacay wuxuu ahaa gobolkii koobaad ee qof bini aadama uu oon ugu dhinto oo yani loo aaso u dhinto xisbigan talada haya iyo xukuumaddan hadda jirta wax tacsiya ama garawshaa ama waxa weeyaan badbaadin ama xitaa tixgelin ah gobolka bulshada ku nool iyo dadka abaaruhu ay saameeyeen kamaysan helin waxaan aaminsanahay hadii abaaruhu ay si daba dheeraan lahaayeen oo roob usidii lahayn dad badan inay dhamaan lahaayeen wax xukuumadda gurmad u fidisana ay jirin dadkii sida ahaa iyo xukuumadda sidaas ahayd waxay maanta ay gobolka u dhex wareegayso joogtaan ay leedahay waxaan rabnaa in la doorto oo doorasho aan galno sidaan ognahay gobolkaas wuxuu ka haray goboladii dhammaan deegaanka ay la midka ahaa waxaad moodaa maalin walba yani wixii soo kordho haday leyd noqoto iyo haday biyo noqoto iyo haday caafimaad ay noqotaba in asaga laga reebayo sababta keentayna waxa weeye xukuumaddii waxaad moodaa ama xisbigu hadba qofkii markaas talada haya ama saameyn ku leh in loo adeegayo oo yani dadkii kale ee deegaanka ku noolaa aan wax tixgelin aan la siinaynin waxaa jirtay ilaa iyo intii xukuumaddan la aasaasay inay dhalinyarta gobolka iyo dhammaan shacabweynaha gobolka ku noolba ay mar walba cabasho iyo baahi taagan ay soo gudbinayeen hase yeeshee jees iyo sid mooyeene wax yani xurmaa ama jawaab oo laga sameeyey midna aysan jirin waxaa jirtay ballanqaadyo fara badan oo gobolka uu ka sameeyey Mustafa Maxamed Cumar intii uu wadanka u yimid ama talada wadanka u qabtay ilaa haddana wax ka fulay inaba ha yaraatee ma jirto meeshaas yani qof alaalo qofkii taga ama dadka ka war haya waan garanaynaa xaaladda ay ku sugan yihiin maalin dhaweyto dhalinyarta gobolka intooda haldoorka u muhiimsanayd ama aduu waqtiga yani jaaniska u heshay shir ayay qabatay ay isku imaadeen sidoo kale ay uga xaajoonayaan shirkii bayaan ayay ku soo saareen bayaankaas oo ahaa in si degdeg ah waxa weeyaan looga soo jawaabo waxay tabanayaan bil ayaa ka soo wareegtay ilaa hadda la joogana wax jawaaba lagama helin taas marka waxayna tusinaysaa inaan deegaanka aan ka mid ahayn inaan xisbiga aan ka mid ahayn inaan xukuumadda aan ka mid ahayn
in yani aan naloo baahnayn ama wax tixgelina midna toon aanan haysanin haddii sida ay dhacdo oo naloo baahnayn ama wax tixgelin ama wax xurmo aanan waxa weeyaan aanan helaynin annagana xisbigan talada haya iyo xukuumaddan hadda jirta wax tixgelina ama xurmo ma siinayno oo mana hayno sidaad ogtihiin waxaa dhammaan la soo xushay baarlamaankii deegaanka ayaa la soo xulay buu yidhi xisbiga talada haya dhalinyartii haldoorka u ahayd ama wax u baratay gobolka waa laga wada tegey nidaam loo soo xulayna ma garanayno dad yani ama tayo ama waxtar aan u lahayna waa la soo xushay in badan arrinkaas waa laga hadlay laakiin wax garowsha ama jawaab celina midna lagama helin dhammaan waxaan odhan karnaa wixii intaa dadku ay tabanayeen oo dhan wax ilaa hadda ka hirgelay ma jirto maadaama sidaas ay tahay oo waxaa soo baahay oo asaasi ay jirto annagu ka dhalinyar ahaan waxaan leenahay xisbigii 30 sano dhalada nooga soo taagnaa ilaa haddana wax horumar ama wax dhaqdhaqaaqa aanan ka haynin oo ma sii dulqaadan karno namana sii maamuli karno yani kumana sii aydnaan karno ama kuma sii qanacsanaan karno inay 5 sano soo socotay wax la mida ayna sii hogaamiyaan sidaa ay daraaddeed annagu ka dhalinyar ahaan dhalinyartii gobolka ku nool inta nala joogta caasimadda inta meel kale joogta oo isku wada fikirna isku wada ra'yinahay waxaan go'aansanay inay xukuumaddan talada haysa iyo xisbigeedaba yani aan kalsoonida kala noqonay wax ixtiraama ama qadarinaan aanu hayno sababtoo ah dawladdu waxay dawlad ku tahay shacabkii haddii la kasban waayo ama la bahdilo ama horumarkii loo diido ama la kala xiiqsado ama yani waxa weeyaan in isaga tala wadaag loo diido de shacabku yani waxa la dhahaa Soomaalida wuxuu mahmaadaa qoolii qorqabad biyo kuma cabto de anagu ma nihin dad yani qoor sagaara lagu haysan karo gobolladii waxa weeyaan waagi hore hormarsanaa ama nidaamka dawliga laga hirgeliyay unbaa haddana loogu sii dirayaa marka intaa ka badan ma sii taageersanaan karno haddaan meesha aan wax yani horumar aan loogu haynin ama wax tixgelin annaga aan loogu haynin kama sii mid ahaan karno dhalinyartii gobolka u dhalatay oo dhammaan oo kumanaan gaadhaysa oo wax wadax baratay oo master degree ah gobolkii bay joogaan degmooyinkii bay joogaan caasimaday joogaan waa wada shaqalaan way iska joogaan marka xaaladahaas oo dhan markaan qiimeynay go'aanadan ka soo baxay dhalinyarta kulankoodii wuxuu noqday inaan xukuumaddii iyo xisbiga talada haya annagu aan kalsoonidii kala noqonnay aanan marnaba raalli ka noqonaynin sida ay wax u wadaan sidaas ay rabaan inay 5 sano hadda kadib iyo wixii la mida ay nagu sii maamulaan ama ay ku soo noqdaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhalinyarada ka soo jeeda gobolka afdheer halkan iskugu timaaday dhammaantiin waan idin salaamayaa kuwa halkan jooga iyo kuwa aan halkan joogin ayaguna waqtigu saamix waayay inay ka soo qayb galaan aad iyo aad baan idin salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo waxa dhalinyarada halkan iskugu keenay aqoon-yahankii iyo waxa weeyaan haldoorkii gobolka afdheer oo halkan iskugu yimaaday oo ka cabanayo dhibaato jirta oo gobolka waxa weeyaan cadaalad darrada iyo waxa weeyaan xaaladda ka jirta ka hadlaya ayaan doonayaa wax yar inaan ka hadlo aniga ku sii dheeraanayna waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxyaabaha maartay uu sameeyay xisbigan iyo xukuumaddan iyo xukuumadii horeeba ay ka sameeyeen gobolkan afdheer oo noqotay meel mar walba lagu danaysto oo caado u noqotay xukuumad kasta oo soo marta in ay ku danaysato waxyaabaha maartay hadda ugu daranay waxa weeyaan gobolka taan waxa weeyaan waxaabihii markii laga tago waxqabad la'aantii iyo abaarihii iyo waxyaabihii ka dhacay gobolka in xitaa waxa weeyaan arrimihii waxa weeyaan khilaaf in macnaha xisbigu iyo waxa weeyaan xukuumadda jirta ay abuurayaan oo shacabkii gudihiisa ku abuurayaan taasi waxaan macnaha ula jeedaa qaabkii xulashadii doorashadii iyo waxa weeyaan xubnihii waxa weeyaan wakiiladii shacabka matalayay in dadkii waxa weeyaan goobihii ku matalayay dad aan ahayn laga soo xulo tusaale ahaan sida degmada email oo kaleeto arintaana ay sababtay waxa weeyaan khilaaf iyo isku dhac ay sababtay wakiiladii waxa weeyaan dadkii u matali jiray shacabka halka ku noolaa in waxa weeyaan iyadoo dana gaar la wato iyo shakhsiyaad waxa weeyaan dan gaar lagu raali gelinayo laga guuro oo waxa weeyaan dad kaleeto la waxeeyo taana waxay sababtay in shacabkii kalsooni darro badan ay ku abuuranto ay waxa weeyaan sas ka qaadeen waxa weeyaan xisbigii iyo xukuumadda jirtay dareenkoogana waxa weeyaan aan wax halkan lagu soo koobi karaan ahayn siday uga xun yihiin iyo waxyaabaha qaabka loola dhaqmay aad iyo aad baan anaguna uga xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay maantii bari baan ka xunnay annagoo dhalinyaradii gobolka afdheer aqoon-yahankii waxa weeyaan xukuumaddan iyo xisbigan BB mar walba waxa weeyaan gobolkan waxay noqotay meel afdheer lagu danaysto oo dad gaar ah maartay lagu raali geliyo lagu naasnuujiyo taa macnaheedu waxa weeyaan
gobolku totally ba wax access kama jiro haday noqoto horumarkii iyo waxa weeyaan noloshii bulshada dhanba baseline loogu talagalay meel ka hooseysu maraya dadkii matali lahaa iyo waxa weeyaan aqoon-yahankii hal doorkii oo dhan waxay noqotay in la iska ilaaliyo oo waxa weeyaan target gooni loo yeesho tusaalahan xildhibaanadii iyo qaabkii doorashadii loo soo xulay dadkii gobolka waxa weeyaan wuxuu tar lahaa aqoon-yahankii hal doorkii oo dhan baa laga tagay dad gooni ah oo waxa weeyaan si gooni ah ayagu waxa weeyaan dana gaar ah lagu wato oo aan gobolkan waxa weeyaan tan iyo naxariis iyo bulshada u danqadaan toonaan lahayn ayaa la soo xushay aqoon-yahankii waad u jeedaan jigjiga iska wada joogaan waa wada shaqalaan meelahan bay iska wada fadhiyaan dhalinyartii wax baratay dhamaantood waa shaqalaan jigjiga wada joogaan inta meeshan taagan iyo inta waxa weeyaan aan eegna la joogin magaalada jigjiga joogta iyo magaalooyin kale deegaankaba dhamaantood waa shaqalaan dad waxa weeyaan old version ah oo aan gobolkan matali karin xaaladda uu ku jiraan aan ka saari karin ayaa mar walba waxa weeyaan jeebka ku ridanayo si waxa weeyaan ayagu danahooga ugu fushadaan taana wax la aqbali kara ma annagu dhalinyaradii ka soo jeeday gobolka afdheer aqoon-yahankii waxgaradkii hal doorkii gobolka oo dhan oo halkan jooga iyo inta naga maqanba ayaguna way nala joogaan waqtigan baa u saamixi waayay aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinayaa kuwa dhalinyarta waxa weeyaan aan isku fikirkanahay ayagana waxa weeyaan waqtigu uu saamixi waayay annaga idin matalayna dhamaantood waxa weeyaan annagu kuwa ku qancaya ma nihiin ama aqbalaya cadaalad darrada haddii aad cadaalad darrada qofku uu ku qanco ama uu hadli waayo de waxay ka dhigan tahay inuu waxan dhacaya iyo dambiga dhacaya uu raali ka yahay ee cadeynaysa marka annagu waxa weeyaan xukuumadda iyo xisbiga BB waxa weeyaan totally ba waxa weeyaan wax dana oo inoo hayaan malaha kumana qanacsanin kumana qanci doona cadaalad darrada waxa weeyaan ay ku dhaqmayaan inta waxa dheer xisbiga BB waxaan doorashadii la gaarin buu wuxuu sameeyaa in uu boob iyo waxa weeyaan uu si musuqa doorashadii kaarashi anagu hadda waxa weeyaan de si ka baxsan nidaamka anshaxii loogu talagalay dimuqraadiyadii iyo waxa weeyaan caalamka ka jira ama wadamada kale ee waxa weeyaan doorashada ka dhacayso waxaan waligeed la arag baa meesha ka dhacay doorashadii in la gaarin baa kaarashi la sii urursanaya la sii kala xadaya jawaabka lagu ridinaya boorsooyinka iyo qabalada lagu guranaya taasi waxay cadeynaysaa aad baan uga xunahay dhamaan goobaha deegaanka kamid ah qaabka loola dhaqmay aad baan uga xunahay waayo stakeholderski iyo dadkii kale ee political partiyadii kale ee opposition ayagana waxa weeyaan mucaaradka oo dhan aad bay uga xumaadeen arintaasna wax fool xun oo waxa weeyaan mustaqbalka dhalinyarada xitaa deegaanka iyo aqoon-yahanka deegaanka dadka moral jibinayso weeyaan waxa loo baahan yahay xitaa hadii waa la og yahay deegaanka inaysan ka jirin wax haba yaraatay cadaalad iyo sinaan iyo waxaas oo dhan aysan ka jirin haddana iyadii oo cadaan ah baa lagula dhaqmayaa dhalinyartii iyo dadka aqoon-yahanka mustaqbalka fiican iyo diilada fiican u muuqatay ayaa waxa la tusayaa inaysan meeshan rajo ka soo muuqanin waa bahdil lagu bahdilayo dadka deegaanka u dhashay taasna aad baan uga xunahay in xisbi asoo isku tilmaamayo oo nooca asoo talada hayo kalsooni darrada nooca leeg uu sameeyo wax aad looga xishoodo weeyaan aad baan waxa weeyaan arintaas uga tacsiinayna cid kasta ay ku dhacday waxa weeyaan xisbiga BB waxyaabaha maartay maanta uu ku dhaqmayo inuu ka waantooma fiican lahayd annagu ka dhalinyaro ahaan gobolka afdheer totally ba xisbigaasi waxa weeyaan annagu xisbina matali kara 5 sano soo socota xisbi sida nagu matali kara ma aha annaga waxa weeyaan mustaqbalka annaga iyo mustaqbalka gobolka annaga aqoon-yahanka iyo dhalinyarada iyo dadka gobolka u dhashay baa ka tashanaya cid gooni annaga wax noo sheegaysa ma laha waxaan waa wax la isku darsaday wax aan isku darsanin baa meesha yaal laakiin waxa aad u wadato mar walba doonayso inaad annaga afka naga geliso wax la aqbali kara maaha waxaan isku darsanay aan ka heshiinay war source aan haysano in la qaybsado waxa lagu qaybsadaa population iyo dhul iyo waxyaabo badan wax lagu qaybsadaa hadda wixii hadan wax lagu qaybsanaynin oo kursiga kolba ka joogo uu waxa weeyaan asagu intuu tunka saarto de wax la aqbalay maaha nin walba reerkooda iyo jifoodu buu maamuli laakiin annaga waxa weeyaan cadaalad darradan iyo qiiqan u wato nala soo dulfoori u mahay marka annaga ka dhalinyaro ahaan waxa weeyaan dhalinyaradu isku day fiican bay sameeyeen abaabul fiican bay sameeyeen shirar hore qabteen baaq bay u direen xukuumadda waxba waa laga soo jawaab waay ilaa hadda waxa weeyaan waa ku socdaa ma baryayno anagu ma calaacalayno laakiin dhul iyo dad baan leenahay ka soo jeednaa aqoon iyo kalsooni nagu filan baan leenahay saadaradeed anagu dhulka anaga iyo dadka anaga waxa weeyaan danahooda ka tashanayna laakiin 5 sano oo kale in gardaduumna lagu sii haysto oo waxa weeyaan aan ayub ku soo jiro wax la aqbali kara ma aqbalayno waayo waxa tusaalahan kugu filan xukuumadda hadda jirto madaxweynaha Mustafa wuxuu tagay gobolka afdheer wuxuu ballan qaaday fara badan buu ka sameeyay wax ballan qaado ilaa hadda ka fulay ma leh 3 sano iyo dheeraad buu joogaa hal ballan qaado oo ka fulay ma leh haddii ka tagay weydo meel yar oo iskuul oo la dhisayo taana waxa keenaya dadka qandaraaska qaatay baa interestigo ku cadaadinayo oo koox ayagu interesti wadato weeyaan ma aha in gobolkan iyo dadkan loo daneynayo waa interesti kale oo gooniya iyo qandaraaska ay riyaalada ee hadda ma aha wax xitaa afdheer aan u qabana la yiri
marka taas waxay ku tusaysaa yasitaanka iyo bahdilka waxa weeye shacabka gobolka loola dhaqmayo lama aqbalayo aqoon-yahankii gobolka Afdheer waxgaradkii waxa weeyaan dadkii laf dhabarta gobolka waxa way joogaan annaga ka tashanayna annaga ayaha gobolka annaga dadkana ka tashanayna in mar dambe waxa weeyaan cadaalad darro aan u sii hogaansano waxaan aqbalaynaa aad iyo aad buu maasantiin aad baan idinku mahadcelinayaa